kolkiiba wuxuu xertiisii ku amray inay doonida fulaan oo ay hortiis tagaan dhanka kale intuu dadkii badnaa dirayo. goortuu dadkii badnaa diray ayuu keligiis buurta fuulay inuu ku tukado, oo goortii maqribka la gaadhay keli ahaantiis ayuu halkaas joogay. dooniduse durba wax badan ayay dhulka ka fogaatay oo hirarku waa dhibeen, waayo dabaysha ayaa ka gees ahayd. waqtiga gaadhkii afaraad oo habeenka ayuu u yimid isagoo badda ku dul socda, oo xertiisii goortay arkeen isagoo badda ku dul socda way naxeen oo waxay yidhaahdeen, waa muuqasho, oo baqdeen bay la qeeliyeen. markiiba ciise waa la hadlay oo ku yidhi, kalsoonaada, waa anigay habaqina. markaasaa butros u jawaabay oo ku yidhi, sayidow, haddaad tahay adiga igu amar inaan biyaha kuugu dul yimaado. wuxuu ku yidhi, kaalay. oo butros markuu doonida ka degay ayuu biyaha ku dul socday inuu ciise u tago, laakiin goortuu dabayshii arkay ayuu baqay, oo markuu bilaabay inuu dego ayuu qayliyey oo ku yidhi, sayidow, ibadbaadi. oo markiiba ciise gacantiisu u taagay oo qabtay oo ku yidhi, gumaysad yarayahow, maxaad u sheegtay? oo markay doonida fuuleen dabayshu waa joogsatay. kuwii doonida ku jirayna way caabudeen isaga, oo waxay ku yidhaahdeen, runtii waxaad tahay wiilka Ilaah.